marka hore waxaan u tacseenayaa madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo reerkiisa iyo reerka marxuumka uu ka dhashay dhammaan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa dhan dhammaan shacab weynaha Djibouti anigoo ka socda dawladda federaalka Itoobiya waxaan ku nimid waqti ballaaran oo Ismaaciil Umar Geelle oo geeridiisa la xaqiijiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo u tacsiyay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya haddaba maxuu ugu tacsiyay madaxweyne Farmaajo sidee ayuu u geeriyooday maxay tahay sababta loo qarinayo geerida madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle xogihii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagayaa iyo sidoo kale arrimo xasaasi ah oo ku gadaaman kiiskiisa dowladda Djibouti oo la geliyay bandow iyo sidoo kale qadkii internetka oo laga xiray xaalka oo maanta cakiran iyo sidoo kale qaar ka mid ah dumarkii uu dhalay madaxweynuhu oo maanta xabsiga loo taxaabay haddaba dowladda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat allaahuma jcalnaa aadiina muhtadiin ilaahow naga dhig kuwa hanuunsan dadkana hanuuniya dhammaan dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka gufaaco ka dhagaysanaya radio Porame CKMS 102.7 FM kana daawanaya Somali Canadian TV waxa aan ummadda Soomaaliyeed la wadaagay waxa xalay dalka ku soo noqday Djibouti isagoo caafimaad qaba madaxweynaha dawladda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle waxa aan barnaamijka shalay markii uu ku soo noqday dalkiisa sii daayay xalay cabaar markayna ahayd North America 9kii iyo barkii habeenimo waxaan meel ugu imi waan soo maray dad siyaasiyiin dhalinyar aqoon-yahano fara badan oo meel jooga oo habeenkii ku caweeya oo ay iga wareysteen barnaamijka aan sii daayay sida uu dhab u yahay waxa ku adkaatay inaan leeyahay waxa soo noqday madaxweynihii dawladda Djibouti oo caafimaad qaba waxaan ummadda la wadaagay waxa 3 jeer la igu celiyay wax cadeyma maxaad noo haysaa waxaanan arrintaas sii daysay ahaynoo waxaan sheegay inaan telefoon kula hadlay dalka Djibouti oo dhabta haddaba dadka barnaamijka dhagaysanay walaalayaal waxaan rabaa inaan idin la wadaago waxa la yiraahdaa warku dadku inay ogaadaan diinta islaamtu ilaahay wuxuu inooga dejiyay qaacido dadku inay bartaan u baahan qaacidadaasina waxay tahay oo ilaahay kitaabka quraanka inoogu sheegay wa in ja'akum faasiqun binabiyyin fatabayyan dadku Soomaalidu warka habka loo baadho warka habka loo dhageysto cidda laga qaato aad iyo aad bay anay ugu fiicneen waxaanan ummadda la wadaagaya ninka haddii lagu yaqaan been haddii khiyaamo lagu yaqaan warkiisu waa war aan la qaadanin faasiq waxa ay tahay kelmaddu daacadda ilaahay baa laga baxaa wa in jaa'a faasiqun binabiyyin fatabayyanu warka iska cadeeya oo ogaada leey waxa la inoo leeyahayna waa maxay warku uu ka duwan yahay waxyaalaha kale dal dhan madaxweynihiisii ummadan madax u ah ayaa maalmahan oo dhan waxa lagu faafinayay uu dhintay waa sakaraad caafimaadkiisu wuu liitaa waxaan ummadda la wadaagay walaalayaal qofka mu'minka qofka kale wuxuu u yahay waa muraayad waxaad ogaataan dadka muslimiintu inay isku yihiin siduu ilaahayna amra aynu raacno waa maxay ilaahay uu ina yidhi tacaawanu cala albirri wattaqwa walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan isku kaalmaysta waxa fiican ee ha isku kaafaymanina oo ha isku kaalmaysanina xumaanta iyo cadowtinimada nebiguna muxuu yidhi xadiis saxiixa masala almu'miniina fii tawaadihim وتعاطفهم وتراحمهم dadka muslimiinta isku naxariistooda isku dhafrintooda isku caadifeentooda nebigu wuxuu inooga matalay jirka madaxa haddii qandhada iyo laxawga qaybta inta jirka kale uu la qaybsada madaxweynaha dawladda Djibouti waa bila aadan kula mid ah waa qof madaxa waxa loo baahan yahay xanuunkiisa xitaa
salafkii oo ahaa dadka aynu rabno inaynu waddadii ay raaceene ilaahay u raalli u kaga noqday aynu raacno in loo duceeyo wey madaxda inaynu baranno weeye madaxda in la inkaaro oo xumaan laga fadiyo inay tahay wax shareecadu diidanta imaamu axmed imaamu ahlusunna waljamaaca sheekhulislaam ibnu taymiya intaba culimadii soo martay muslimiinta waxa ay yaqaaneen oo ay ku soo arooray asxaabtii oo ay ka barteen taabiciintii intaba in madaxda loo duceeyo in madaxda aan la inkaarin inaan madaxda xumaan laga sheegin inaan la fadeexadayn waxaan ummadda u sheegaya waa amar ilaahay aayadda uu inagu siinayo oo ina leeyahay wa adiicu llaha wa adiicu rasuula wa nidaa'u takriim yaa ayuha aladiina aamanuu wa adiicu llaha wa adiicu rasuula ilaahay rasuulkiisii adeeca iyo ulil amri waa madaxdii wey culimadana waa la yidhaha haddaba dadka barnaamijka dhegaysanaya waxaan leenahay dadku waxaa jira axaadiis saxiixa soo arooray oo ka hadlaya madaxda in la adeeco ninka doonaya 40 xadiiso saxiixa waan siinayaa koobi madaxda ha loo duceeyo madaxda ha la adeeco yaan xumaan laga fadinin ismaaciil cumar geelana uu caafimaad qabaa dalkiisiibuu ku soo noqday ilaahayna waxaan uga maraynaa caafimaadkiina uu siyaadiyo halka barnaamijka aad ka dhegaysanaysaan waa radio borame kana daawanaysaan soomaaliya kalan tv wanigoo tafaktiraha xaamu suldaan cali cilmi suldaan